magaalada Xarshin waxay u dhowdahay xadka Somaliland iyo Ethiopia. Labada magaalo waxay isku jiraan 75 kiiloomitir. Labadan magaalo aad uma kala fogaa, laakiin marmarka qaar waxay qaadataa tegitaankeeda in dhexda lagu dhaxo oo waqti badan lagu jiro jidka. 10kii subaxnimo ilaa 8dii habeenimo ayay nagu qaadatay in aanu gaarno magaalada Xarshin. Waxaa u baxa gawaaridan dhaynayaasha ah oo qaada dad iyo raashinba. Jidka labada magaalo u dhaxeeya ma samaysnaa. Waxaa tegi kara qof dhulkan si fiican u kala yaqaana. Waa dhul ciid jilicsan oo dhooba ah. Waxaa ugu daran xilliga roobka oo baabuurtu ay jidka galaan oo dhiidhida ay ka bixi kari waayaan. Laba baabuur ayaanu kaga baxnay magaalada Hargeysa. Kolba baabuur ayaa gelaya dhiidhida. Waxaa lagu jiidayaa baabuurka kale. Mid ka mid ah baabuurtii ayaa xumaaday. Kanna waa baabuur kale oon ku dhaafnay jidka. Waxaan filayaa in uu u dhaxay halkan. Dhulka waxaa helay roobab badan baa helay. Marka ka waxiga arkaysan. Yaa Ilaahay. Candadii ayaa xagga hoose jabtay. Intaanu ku sii jirnay jidka waxaanu sii marnay meelo badan iyo dhul badan. Waxaa ka mid ah meeshan loo yaqaano dacarta, oo meeshan waxaa ka baxay dacar aad iyo aad u tiro badan. Waxaan ku daawan doonaa muuqaalka xagga dambe. Dhulku waa barwaaqo. Meel kasta biyaa jiifa. Wow. Gaadhigaygina waa kan laga horeeya. Isaga laftirkiisa wuxuu galay dhiidhi buu galay. Marka ood ciidii waan ka gurnay dhoobadii. Ood baan hoos gelinay. Ragga qaar way soo saaminayaan jidka. Ayay saaminayaan. Laan kale. Hadda waxaan soo saaminaynaa jidka in uu baabuurku mari karo iyo in kale. Ragga iga horeeyo dhan saamin bay ku jiraan. Gaadhigu soo dhaqaaqay. Aan ka baxsano. Dhirta waa la dul marinayaa. Dhirta lagama qabanayo maadaama meel kasta la dheeri tahay. Geedkan oo kale gaadhiga waa la dul mariyay gebigiisaba. Waxaasoo raggaa saaran oo daba yaacaya. Riixaya xataa. Darawal waxaa wada la yidhaahdo Xuseen Carab oo qadiimi. Halkan waxaa soo mara dooxa Wajaale oo ballaadha. Biyihiisa ayaa halkan ku ballaadha. Marka meeshan waa meel biyo badan soo maraan. Ciidu ay jilicsan tahay. Balaca bannaan iminka in yar u jirnaa. Waa maalin shaqo macal dalxiis macal safar. Waa 1:00 duhurnimo. Yaa Ilaahay. Xaggaas lagu heysanayaa bannaanka. Ayaana gaadhigii baa taagan. Masaajidka yar oo dhexda ku yaala ayaynu ku tukan doonaa. Tuulada magaceeda waxaa la yidhaahdaa Baryo Cune. Nasiib baan leenahay hadduu nooga baxay baabuurku.
Markani waa markii noogu darneyd ee baabuurku naga galo. Waqti badan ayaanu ka saaranay. Waqti badan ayaanu qodaynay. Ninkani waa dirawalka baabuurka. Waa nin khibrad dheer u leh jidka. Ciidu way qoyday. Dhoobay noqotay. Waxaa la sameynayaa ciid qalalan ayaa la soo gurayaa. Biyaha ayaa laga xidhayaa. Waxaa la isku dayayaa in meesha la adkeeyo. Dumarku way mashxaradayaan maadaama gaadhigii laga saaray. Dadkuna way faraxsan yihiin. Waa lagu guuleystay in laga saaro baabuurkii. Masha Allah. Waa gelin dambe. Waxaanu soo gaadhnay meesha loo yaqaano dacarta. Halkan waxaa ka baxdaa dacar aad u tiro badan. Waxaasoo dhir ah ood arkaysaan waxa weeyaan dacar. Geedka dacarta loo yaqaano ayaa meeshan aad iyo aad uga baxay. weliba dacartiyo biyo ka dheragtay ayaa meesha ka baxday. Meeshan magaceedaba waxaa la yidhaahaa dacarta. ilaa inta indhaha u qabanayaan waxa ka buuxda dacarba ka buuxda. Dacar iyo geed loo yaqaano quraca iyo geedka loo yaqaano cadaada. Geedka cadaada loo yaqaano xabagta laga soo guro. Sakaara xagga balac bane ayaa la dhaafayaa. Dhanka xarshin ayaa loo dhaafayaa. Waxa weeyaan meel aan hadal karin hadal. Halkan weliba dacartu way ku yartahay. Meelaha qaar dacar nooc kale oo aanan aragba ayaa ka baxda. Dacartan waa tii caadigeena naqaanay. Intaan soo soconay iminka waad arkayseen. Nooc kale waxaa jira aan noocan aan ahayn oo nooc kale ah ayaa jira oo dhaadheer. Tii shaambooyada ku sawirnayd iyo gareemyada iyo maaragtay aloe vera la yiraahdo wax saas magaceeda malaha. Dacarta waa tan noocan nooc kale weeyaan. Marka gaadhigiiba halkaa naga galay, dhiidhi buu naga galay. Marka halkan shimbiro iyo geel koortii baa la maqlayaa. Wax kale oo meesha la maqlayaa ma jirto. Geedkana magac buu leeyahay cidii garanaysaa ha noo sheegto. Anigu magaciisa waan iloobay laakiin geedkan markuu qalalo hadduu roob da'o ayaa roobku hadduu da'o oo dhirta kale oo dhan qoydo oo xaabo aad weydo geedkan ayaa la shitaa. Isagoo si kastaba qoyay ayuu haddana markaaba dabka qabsadaa. Waxaasoo dhan waxa weeyaan dacar ilaa inta indhaha u qabanayaan. Waxaasoo dhan arkaysaan waa dacar. Maanta oo dhan waxaan soo baxnay malaha 9 aroornimo Hargeysa ka soo baxnay. Iminkana waa casar balac banaan joognaa. Maanta oo dhan gaadhigu dheeri ayuu nagula jiray. Farahayaga waa arkaysaa. Maanta oo dhan baan qodaynay. Marka waa gaadhigana xagga saraan saarnayna cadceeda. Shaadani yaa ilaahay. Meesha ugu dacarta badan weligay ma arag meeshan oo kale ama meel san oo kale u dacar badan. Safarkayga intaan ku soo guda jirnay waxaan arkaynay dhul kayma ah oo biyuhu dhex jiifaan oo barwaaqo ah. Dacarta nooca ay sheegay waa noocan, waa nooc kale in ay xoolo cunaan iyo in kale mooyi. Waa nooc ka duwan noocan. Halkan company dacarta dawooyin, shaambooyo, gareemyo waxyaabo badan ka samayn kara haddii laga furo 10 sano ma dhammaynayo. Kabahayga si noqdeen eg culayska waxay u dhigmaan 2 kabood in xidhan tahay. Xagga hoose waxaa ka saaran dhooqo ciid badan aad u badan. Biyo ka dhergeen waxay noqdeen culays. Yaa ilaahay. Geedkan cadaad baa la yidhaahaa. Xabag buu sameeyaa. Xabagtaana waxyaabo badan baa looga faa'iideysan karaa. Xilliga safarka ama xagaaga ayuu xabagta sii daayaa. Marka haddii aad nabar yar ku dhufato nabarka aad ku dhufatay
aroortii markaad u timaado waxaad arkaysaa isagoo xabag weyn yeeshay. nimco roob mahigaan ayaa soo socda. dameero maaha dadka garanaya, waa dameero reemiyi weeyaan. waa dameero naxnaxsan oo reemiyi. yaa ilaahay dameero aan la rarin weeyaan oo rarka iyo waxaan garanay ma filaya iyo in la raro wallahu aclam. halkani waa magaalada Xarshin. anigu waxaan u dhaafi doonaa dhanka koonfurta, waxaan tegi doonaa meel loo yaqaano Gamaad. waxaan doonayay in aan lugeeyo 2 saacadood Xarshin ilaa Gamaad. nimankan ayaa ay sii qaaday oo xaabo doonanayay oo reer Xarshimeed ah. halkaa aan ka soo soconnaa waa magaalada Xarshin. dhankaa iyo waxaan u soconnaa Gamaad. waa markii ugu horreysay aan Gamaad ku tago dameer. intii hore waan lugeyn jirnay nimankan baa isii tuuray oo askari raacay. waxa weeye waa safar aad iyo aad u fiican. Xarshin marka Xarshin ilaa Gamaad ilaa 3 saacadood baa la socdaa. marka hore waxaan doonayay inaan lugeeyo, kabaha waaweyn baan soo xidhay, laakiin niman baa isii tuuray. marka waa safarkaygii Xarshin ilaa Gamaad. dameerka lagu safriyey. wow saacado dameerka raacno. lugeynayno 2 saacadood bar ilaa 3 saacadood baan lugeeyaa. laakiin marka dameerka la raaco ama gaadhi ximaarka saacad baan ku tegaynaa insha allah. dameerku magac ma leeyahay? magac muu leeyahay? magaciisa maxaa la idhaha? yaa qayldhub. dameerkan waxaa lagu soo gurayaa xaabo. magaaladii Xarshin xagga dambe naga xigtaa. imka koonfurta Xarshin ayay Gamaad naga xigtaa. koonfurta baan soconaa. marka magaalada Xarshin agaarkeedu dhir badan ma leh. marka xaafado waxay sameeyaan dameerkan oo kale leeyihiin. marka xaabada waxay ka soo gurtaan halka Gamaad ee xilka ah ee laga helayo xaabada laga helayo. marka qof ama 2 qof israacaya gaadhi ximarkan oo kale lagu soo gurayaa xaabada. marka saasa ay reeruhu ku soo xaabaystaan. dhulka roob badan baa ku da'ay. meel kasta waa dheedhi. nimankii soo qaadee gaadhi ximaarka watay waan ka imid oo iyagu dhinacaas u laabeen, ana dhinacaasaan u socda. marka dhulkaas waa dhul dee waa bannaanka aad arkisiin. roob badan baa meesha helay dhulka oo maashii nimco ilaahay weeyaan. marka dee intaad meeshan marayso nafar socda way yartahay inaad aragto qof socda, qof xaabi iyo wax doonanaya ama dhuxul sida ama lugeynaya. marmar baad arkaysaa oo Xarshin kusii socda. marka wadadan waxaa la idhaha wada bariis baa la idhaha. garanaya unbaa garanaya. ninkii Caleydh iyo Gamaad iyo meelaha tegan baa garanaya. marka rooba badan baa ku da'ay inkastoo weli aanu doogii isqabsanin. biyo halkan fadhiya. halkan waa wadada halku baabuurku maro weeyaan. wada bariis. yaa halkan waxa weeyaan waa shuuro iyo caano geel. marka shuurada waxaas waa soo gooyaan. waa shuuro arbakhi laga sameeyey, maaha shuuro magaal, waa shuuro miyi weeyaan. halkan waxaa laga arkayaa banaanadaas laga arkayaa. marka yaryar ba ma adraka ma shuuro reemi acun baalka cuna oo kuleel jibinaysa. marka qofkii u baahan suuqa ku dhuuqaya, qofkii u baahan caano ku dhuuqaya, fiigan halkaas ka daawanaya. markaas geel jir muxuu ku ogyahay baa layidhi wax marayka ka socda. caanahana waa caano riyaad weeyaan, caano geel maaha. caano geel baan moodayay marka dambe la guri waa caano riyaad. waa isku dhadhanba. qadadii waan soo qadeynay geedkan hadhaca ama geedkan galoolka ah
oo harkiisu aad u fiican yahay ayaynu hoos seexan doonaa. Hal saac ayaan indhaha casiisanaa. Masha Allah. Dhulku waa barwaaqo. Markaasna waxaan u dhiganaa inkasta ay biyo meesha fadhiisteen roob badan da'ay. Cawdan yar baan dhacdhac ku siinaa insha Allah. Falilaahi alxamd. Asxaabta, halkani waa meesha loo yaqaano Gamaad. Waa subax hore, waa 6dii subaxnimo iyo dheeraad. Waxaa la maqlayaa codka shimbiraha iyo dabaysha iyo cadceeddii soo baxaysa iyo dhulkii oo cagaaran. Waxaan rajaynayaa in aad muuqaalka ka hesheen. Asxaabtiina haddii aad la wadaagi kartaan iyo dadka aad familiga tihiin la wadaaga. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waa inoo mar kaliya muuqaal kale. Assalaamu calaykum.